kale iyo cooking with xafsa kusoo dhawaada markasta waa naga daawanaysaa waxaa la sameeyey cooking with xafsa.com marka u dayma la-aanina fiiriya insha allah wax kasta ayagoo habaysan ku jiraan meesha saa kala socon kartaan maanta waxaan sameynayaa muufadii maalin aan soo geliyay masha allah aadka uga soo hesheen commentiga badan aan ka sameyseen dad badan oo idin kamid ah waxay dhaheen weligeen muufa yacni noocan loo sameynayo maalin araba farmada la gelinayo inuu ku faraxsanahay inaan maaragtay aad ka faa'iideysanaysaan channelka inaan subscribe gareeya insha allah share gareeya videoyaasha si maaragtay walaalo badan ay u gaarto fariinta aan wadno insha allah marka muufadaas oo maaragtay isku siyaa loo qasayaa waa sidii muufada caadiga u qasan jirtay marka muufadaas saas loo qasay oo waxaan sameynayaa kabaab dhexda laga gelinayo maasha allah aad u fiican haddaa rabta casho ka dhigan karto ilmaha dadkii dhaaya ilmaha wax fiican soo geli haddii aad ilmaha iskuullada aa cunto usiiso kaleeto qada usiiso qada yar fudud ay noqonaysaa baasta iyo bariiska markii maaragtay laga carargedisanaayo wax ilmaha la siiya noqonaysaa waa wax aad u fudud maaragtay sidaa taqaani si ka bedelanna loo sameeyey dadka Soomaaliya jooga asxaabta Soomaaliya joogtana waxaan ka wax sameyn kartaa waa wax idin yaallo waxyaabaha aniga aan sameeyo waxyaabaha Soomaaliya laga helo dabcan ajnabi haddii aad la degan tahay haddii cunto Soomaali lagu weydiiyo uga faa'iide waxyaabaha marka aan xoogga saaro waxa waaye wax maaragtay Soomaalidan ay ugu faanin karto inaan soo bandhigo marka daawasho wanaagsan asxaabta qaaliga soo dhawaada maanta waxaan sameynaynaa kabaab muufa la dhexgeliyey alaab caalami ah cunto Soomaaliga iyo casriyeynayna fudud yacni sidaa doonta oo cuni kartid waxa meeshaas ku jira waa toon shiidan cusbo iyo xawaaji buurbuur intaas ma isla garan weyne in la soo qoro uma baahno waa toon shiidan xawaaji buurbuur iyo cusbo baaquligaas kalena waxaa ku jira rooti yaasha maaragtay markii ay labada xabo midda ugu horeysa midda ugu dambeysa lama cuno waa toasti gareeyay bread crumbs aan ka dhigay oo waxaan ka dhigay rooti jajaban oo la qalajiyey aan ka dhigay intaan shiiday waa rooti waxaas u jeedaan xabad ukuna waxaan kaloo jarjaranayaa kabsar caleen iyo basal caleen wax aad u fudud yacni qof kasta intaas waa yaqaanaa rootiga labada xabo maaragtay dadka badanaa ay tuuraan ha iska tuurin waxaa sameysaa toasterka geli qalaji markaa qalajisid shiid ama jajabi gacanta ku jajabi wax yaroo caano ah kabaab yaroo maasha allah kaaga soo baxaayo marka aniga waxaan jeclahay inaan maaragtay aan recipe sameeyo aniga aan leeyahay marka waxaan hadda la imaaday sheekadan ah in maaragtay muufada aan siyaabo badan u isticmaali karno idinkana insha allah casriye ahaan u isticmaali kartaan ilmaha maaragtay uga bedela wax cuntada uga bedeshaan ha noqoto insha allah aad ay u fududahay yacni qof kasta sameyn kara waxyaabaha aan soo geliyay waxa waaye waa wax qof kasta sameyn kara insha allah biidnillah marka saasaa u duuduubaysaa caanihii isku dhijiraayay iyo rootigii iyo ukuntii waxaasoo dhan hadhowni wax qaleyl kaama noqonaye wuxuu noqonayaa wax yaroo macaan oo dhadhanka maaragtay aad u macaan jilicsanna insha allah marka tartiibtaasaa u duuduubanaysaa marka u kuuskuusto sidii ay jeceshahay yacni haddaad doonta gacanta waa dheereyn kartaa laakiin aniga maadaama aan hadda muufadii aan hore u qasanna aan dhex gelinaayo saana u duuduuba saliid yaraan dabka saaranaa 2 qaado 3 qaado camal oo liliiba ah wax yar aan ku gaduudinayaa yacni wax yaroo beena labada dhinac karis badan looma baahna maxaa yeelay foornada maadaama uu galaayo karis badan inay si fiican u kariso yacni looma baahna foornada ku kari doonaa laakiin gaduudka kore un baan ka dilayaa insha allah wax yar aad u macaan noqonaya marka hilibkan insha allah 3 nooc aan u isticmaali doonaa videoyaasha soo socdo mar anigoo maaragtay meatballs camal ka dhigayo baasto aan u isticmaali doonaa suugo fiican u karinaya marna haddeertaan muufadaan aan u isticmaalayaa mar kaleetana alaab kaleeto aan idin tusi doono surprise hadda idiinma sheegaayo aan u isticmaali doonaa marka stay tuned rooti birta maaragtay aad muufada ku sameysanayso markasta waxaa muhiim ah in aad badhar fiican mariso muufadan waa muufadii aadka uga heshano maalin dhaweyd aan gelinayo foornada muufa baraawada ahayd qofkii ay dhaaftay ha fiirsado waa muufa amazing ah dadkii cunto kariska ku takhasusay xataa waxay soo qoreen xabsa maasha allah weli baana ku fikirin alaabtan marka u dayma la-aanina videogaas haddii aad rabto sida loo qasaayo dabcan kuma soo celinin videogaas inaad soo fiirsatid waayo muufadan sida fudud loo qaso aad soo baratid markaas kadib aad inta usoo noqotid hilibkan samaysatid alaabtan aad ku dhex dartid insha allah laakiin ilmaha casriye fiican iskoolkay u qaadan karaan waa cunto Soomaali sharaf leh haddii lagu dhaho meel wax keen waxaana geyn kartaa haddii aad rabto maaragtay casriye boobsiis ah waa dhagaan ku leeyahay koobkaaga shaaxa u shubanaysaa waa cunto yaroo fuul ah maalinkai aad rabin maaragtay inaad cunto karis badan aad gasho insha allah alaabtan ha u dayma la-aanin
marka saasaa ugu shushubaysaa wax yar qaado adiga koobkaas yaraa ani haystaa laakiinse adiga waa qaado iyo bar qaadada weyn yacni qaadada weyn oo aad oo buuxdo camal maybe wax yar dhaanta aad hoos uga shubaysaa haddana korka uga shubaysaa marka aad ha u buuxinin hadda aad u buuxiso yacni hilibkii meel uu ka gala male wixii hadhowto waa kaa burayaan waa daadanayaan marka inta aad ku shubayso waa muhiim inaad qiyaasato oo wax yaraa soo goosanaysaa ama gacanta ku gooso ama qaado kusoo gooso ama sida aad kusoo qaadan karto kusoo qaado insha allah hilibkaagaasaa dhex gashanaysaa kabaabka ah waa isku dhamaataan ku leeyahay korka waxaan ka saaraynaa sabiib waxaan haystaa sabiibna waan ka saari doonaa hadhow midda dambe laakiin middan waxaan korka ka saarayaa sisin iyo xabatu sowda midda kaleetana waxaan korka ka saari doonaa lows iyo sisin iyo chia seed iyo isku shiidano waxaan haystaa subaxi quraacda aan ku kor darsano iyadoo baakad ku jirtaa oo soo gataa taasaan korka uga dari doonaa haddii aad isdhahdaan idinma tusaayo laakiinse hadhow gadaalaa ka arki doontaan insha allah maxaa yeelay waqti badanaan diidayaa inaad maaragta fiirsataan waqtigaan soo koobkoobayaa aaday u fududahay foornadaa ku tuuraysaa 350 aa u geynaysaa qofkii maaragta yurub iyo meelahaas jooga wuxuu u geynayaa 170 aan u malaynaa 175 meelahaas aa u geynaysaa waa isku dhamaatay aaday u fududahay foornada meesha hoose kaliya beega u shiday alaab cajiib ah kasoo baxayso oo doolsho aa moodid oo maaragta dhexda dhan dhibca dhibca ka leh oo hadde ku dhahaysa ha isii daynin okaasaa sooma qurux badno rooti aa u malaysaa laakiin rooti maahan waa muufa soomaali habkaas loo sameeyey ma ku fikirta weligaa maya okay soo duceehe marka aada uga mahadsantihiin ducada sharafta leh walaaltinimada qadarinta wakaasa soomaaliya inaan wax fiican kasoo bandhiga aniga iga go-an idinkana sheer gareeya okay dagaalka maaragtay dhinaciina ka gala soomaaliya imijkeeda inaan fiicneyno waxaana wanaagsan qof kasta wixiisa wanaagsan meel la imaadaa qurux soo maaha maasha allah cunta soomaali cajiiba wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cooking with xabsa.com aa la sameeyey hawday ma la-aanina saliidii timaha go-idda ka ilaalinaysa wataasaa snapchatkayga iyo facebookgayga instagramka kulli halkaasay ku qoran yihiin wassalaamu calaykum love you